lacagtii waxa lagu soo gagabeeyay 15 kun waa $150 ma bixi kari xitaa xiligaas shidka adduunka ah adiga waxa isku dayay ina $50 raadiyo isbuuc ina $50 ku aruuriyo raadiya isku dayay $50 helay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فلان كسو دواو قصة حنوك بدن واني كاسميني فنان كوين ليل بليل عدما محاد كلا صوتا فنان كليل بليل إيا قصدي حاسكي ولا شيء لبدا ويل واي كلا تاقين عدما انت يعني اقود اقلين برنامج كوحين كوا عصرينا حدي عاد كو عصب تاي جنال كينا انا سبسكرايب سارتونا لاي قريس فيديوغا ما سنة فنانك وين ليل بليل ayaa la sheegay inay kala tageen xaaskiisii labada wiil u dhashay waxaana sababay inay labada wiil kala tagaan sidaynu wada ogeyn fanaanka weyn lيل بليل markii uu guursaday xaaskiisa ayuu iskaga baxay fanka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أنا أقول ليل بليل مقعد أبطانا ويا سلام محمد علي كنا مقعد ليل بليل What? أدون وينها دم أنت كو هذا شعب صومالي وحا أغيسين يا ميوزك أودن يفن أودن من الاسكنداف waxaan noqday nin family leh oo waan guursaday alxamdulillah rabbil caalamiin sida adduunka dhan wada og yahay waxaan rabaa hadda kadib inaan u soo jeesto familkeyga balse markii ay laba wiil u dhashay ayuu wuxuu jeclaystay inuu dib ugu soo noqdo fanka balse xaaska lيل بليل oo ka biyo diiday ayaana u sheegtay inaysan jeclaan inay nolol la qaybsato nin fanaan ah maadaama uu la wada og yahay fanaanku inuu mar waliba jecel yahay inuu la socdo gabdho fara badan lيل بليل oo ka biyo diiday arrintaas ayaa soo qaaday heestii Moolo Moolo taana waxay dhashay lيل بليل in laga furo gabadha waliba si awood iyo xoog ah asagoona la xumeeyay maadaama uu waagaas ahaa nin aanan wax lacag haysan lacagtii waxa lagu soo gagabeeyay 15 kun waa $150 ma bixi kari xitaa xiligaas shidka adduunka ah adiga waxa isku dayay ina $50 raadiyo isbuuc ina $50 ku aruuriyo raadiya isku dayay $50 helay gabadha aabaheed ayaana u sheegay inuu iska furo gabadha lيل بليل maadaama uu noqday wiil fasqi iyo xumaan ku dhex jiro lيل بليل oo galay waano iyo inuu ka dhaadhiciyo aabaheed gabadha inuusan furin oo ay wada joogaan laakiin aabaheed ayaa ka biyo diiday maadaama uu lيل بليل noqday nin fasqi iyo xumaan iyo xaaraan iyo wuxuu ilaahay xarimay ku dhex jiro ugu dambeyn lيل بليل ayaa looga furtay si awood ah gabadha markii dambe wuxuu hayaamay lيل بليل cariga Yurub taas oo dhalisay in saaxiibkii CK oo ku gubaabiyo inuu hees ku soo karbaasho xaaskiisii hore daawan is xanuun marraba inaa wajigaaga arku yiri qabrigii hadaa dhinta xitaa macnaa qabrigii ha imaan sofa aniga inta heesta aysan maaragtay dhex gaarin waxaan dareemayaaba murugo lيل بليل oo aanan aad u caqli badnayn ayaa qaatay taladii uu siiyay saaxiibkii CK taas oo dhalisay inuu ku soo karbaasho xaaskiisii labada caruur u dhashay hees uu ugu gafayo miraha heestana waxaa ka mid ah ha imaan qabrigeyga hadaa dhinta xataa ha isoo booqan noloshadii hore adi darta banu nacay laakiin maanta xariirkeeni adiga jaray anna kamaroonane waan dhamaystiray I'm sorry to say like this is last goodbye Maya I don't wanna see you freeze Don't ever come to my grave lيل بليل oo aanan ka xishoon xaaskiisii ayaa bulshada horteeda ku ceebeeyay una sheegay inay xumaysay oo asagana jeclaa qisadan aadku xanuunka badan ayaynu ka wareysanay dadka agdhow familka lيل بليل waxayna inoo cadeeyeen lيل بليل inuusan ilaa hadda wax biira u dirin labadii caruura uu dhalay sidoo kale uusan ka warqabin meesha ay ku nool yihiin iyo inay caafimaad qabaan iyo in kale taasoo dhalisay inay jaraan familka ay ka dhalatay xaaska lيل بليل dadka ayaana inoo cadeeyay in labada wiil ay qaateen magaca awowgoodii hooyada dhalay maadaama uu aabahood noqday asaasaq
fasqi iyo xumaan iyo naagaha caddaankaa raaraaco. allaahuma najinaa ilaahay naga najeeyo, ilaahayna nagama dhigo kuwii raaca wadada liilbaliil ee xumaanta iyo fisqiga iyo xaaraanta iyo kalaabyada iyo gabdhaha caddaanka ee lala raaxaysanayo. qof walbuu ka taga familkiisii iyo caruurtiisii kana doorbida inuu la raaxaysto naaga caddaana waxaa ku dhici doona dhibkii ku dhacay walaalkeen liilbaliil. isagana waxaan leenahay ilaahay ha xasiliyo qalbigiisa kuna soo celiyo familkiisa.